cryptocurrency waxaa laga yaabaa inaad marar badan maqashay cryptocurrency. Cryptocurrency waa mustaqbalka. waa maxay waxa weeye cryptocurrency Assalaamu calaykum, soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa cryptocurrency. Cryptocurrency waxaa laga yaabaa inaad marar badan maqashay cryptocurrency balse aadan ka haysanin fikrad sax ah. Cryptocurrency waa lacag aan la taaban karin digital ah taasoo ku dhisan technology lagu magacaabo blockchain si loo maamulo loona xaqiijiyo isdhaafsiga maaliyadeed. Way ka duwan tahay lacagta caadiga ah sida dollarka ama shilinka. Blockchain waa buug xisaabeed oo aan la bedeli karin xogtiisa. Cryptocurrency waxay leedahay astaamo waxaana ka mid ah decentralized, ma lahan hay'ad dawlad ama bank gacanta ku haysa oo maamusha. waxaa lagu maamulaa sistemyo badan oo caalamka oo dhan kala yaala. Ammaan waxaa lagu ilaaliyaa cryptography, qoraal sir ah, kalsooni iyo muujin. Dhammaan wax kala iibsiyaha blockchain-ka waa la arki karaa laakiin magacyada isticmaalayaasha lama arkayo. xad la'aan waxaad diri kartaa laguna soo diri karaa lacago badan oo aan bangiyada lagu kala dirsan karin. lacagtan digitalka ah waxaa lagu haysan karaa waxa loo yaqaano wallet ama boorso, waxaana ugu caansan Bitcoin oo ah kriptadii ugu horeysay oo la aasaasay sanadii 2009 waxaana aasaasay koox ama qof lagu magacaabo Satoshi Nakamoto. Ethereum oo loo isticmaalo smart contracts, Ripple iyo Dogecoin kuwaas waa qaar ka mid ah lacagta cryptocurrency-ga ah sida loo iibsado ama loo isticmaalo. Exchanges sida Binance, Coinbase, Mex iyo wixii la mid ah waxaad ku iibsan kartaa crypto adigoo adeegsanaya lacag caadi ah sida dollar. Wallets waa sida boorso oo kale, waxaad u adeegsan kartaa kaydin, iibin iyo iska iibinta cryptada. waxaana ka mid ah Trust Wallet iyo Hot Wallet. faa'iidooyinka crypto: adeeg degdeg ah, qarash yar, ma jirto dabagal maaliyadeed. khasaarooyinka crypto: qiimaha oo isbedbedela, qaar ka mid ah dalalka oo aan ogolayn. haddii aad lumiso private-keygaaga waxaad waayi kartaa dhammaan lacagaha crypto ee aad leedahay. qatar maaliyadeed: khasaaraha kale ee ay leedahay waa qatar maaliyadeed. crypto waa high risk, kaliya geli lacagta aad ka maarmi karto. talooyin: cidna hala wadaagin private-keygaaga sababtoo ah waa sirta wallet-kaaga. ka fogow scamiska, qaar ka mid ah crypto waa halaag sida bonds schemes oo kale. baro oo baar ka hor intaadan dhexgelin crypto ama ka hor intaadan maalgashan. lacaga waxaa jiro oo cryptada ah waxaa ugu weyn oo hadda aabbo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo Bitcoin. Bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad $1 halka Bitcoin oo aan u dadaalin inay milyaneer noqdaan. lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye lagama sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid. lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid. dad badan oo ka faa'iideystaa jiro ayagoo da'dooda yaraa waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneer yihiin. ma shaqeynin ma dhiidin 4 saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen. lacagtan la yiraahdo crypto waa lacag cusub oo hadda adduunyada ku soo kordhay. waa lacagahaas mudan gudoomiye ma aha dollarka caadiga ah warqadda ma aha, dahabkii la yaqaanina ma aha. waxaa la yiraahdaa digital currency salira ama cumlaat raqmiya. العملات الرقمية عربية الويرة lacagahaas mudan gudoomiye caalamka hadda ku soo kordheen. waxaa looga maarmay taakooyinkii ay bangiyada ku hay jireen dadka lacagaha waaweyn haysta oo ah in markaad lacag bangi dhigatid aad isla markii ka heli karin. saadarteeda waa lacagta hadda la rajeynayo in loo guuro adduunyada hadda ay u guurto. mudan gudoomiye 3 qaabood ayaa lacag looga sameeyaa suuqaas. midda koowaad waa investment, qofka inuu samaysto maalgelin oo lacagtiisa maal gashto. dad badan hadda waxaa jira lacagaha ku haysta bangiyada $1 bangiga dhigato 10 sano kadib $1 ku yaal. laakiin caalamku hadda wuxuu sameeyay investment inaad lacagtaada maal gashato. lacaga waxaa jiro oo cryptada ah waxaa ugu weyn oo hadda aabbo ah ama hooyo ah lacagta la yiraahdo Bitcoin. Bitcoin 2012 waxay joogtay halka xabo ku dhawaad $1 joogtay halka Bitcoin macna. qofkii ka maal gasho lahaa ama soo iibsan lahaa meesha ugu yar aan ka soo qaadna $1 oo 1 xabo ah. sanadkan halkii Bitcoin wuxuu gaaray $70,000 uu gaaray halka Bitcoin. halkii Bitcoin wuxuu gaaray $70,000. macnaheedu maxay ka dhigan tahay marka? dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay lacagtaadii waa gelisay
كمبيوترka waa isku laabtay waa ka jeesatay maanta 2024 ah waxaa haysataa 70 milyan oo dollar kunkii xabo oo halkii xabo 70 kuna waa 70 milyan ma shaqeynin yani ma dhiidin afar la saac computer ma dul fadhinin baawur ma sii saarneen ma soo saarneen suul meel ma saareen kaliya waa investment ina suuqa maal gashato mudan gudoomiye lacagahaas investmentiga ah meesha ugu yar hadda ka sheegnay waa $1,000 ninkii 10,000 gasho lahaa 700 milyan oo heli lahaa suuqaas marka maalin kasto saacad kasto sanad kasto wuxuu soo saaraa dad milyaneero soo saaraa oo aan u dadaalin inay milyaneero noqdaan lacagta meeshaas laga sameeyo mudan gudoomiye lagama sameyn karo apartmentiyo aad dhisatay wixii ka soo galo ma ka sameyn kartid lacagta meeshaas laga sameeyo kama sameyn kartid mushaar aad qaadatay wixii aad meel ka dhigtay kama sameyn kartid dad badan oo ka faa'iideystaa jiro ayagoo da'dooda yaraa waalidkooda lacag ka qaatay suuqaas maal gashtay markay 20 sano gaareen ay milyaneero yihiin mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh wajigaas koowaad waa wajiga investmentiga waa يعني waxyaalaha kale oo suuqa uu ku fiican yahay waxay tahay hadda bangi marka tagtay 10,000 isii marka dhahay 100,000 haday kugu jirto 10,000 isii hadaa dhahay loo bil kadib isoo noqon kulay ma helaya macna laakiin saacad kasta iyo daqiiqad kasta ayaa waxaad la soo bixi kartaa ama lagu soo diri kartaa milyan iyo wax ka badan adigana aad diri kartaa lagu soo diri karaa waana diri kartaa macna wax ku celinaya ilaahay uunta male kaliya waxa u baahan tahay internet waxa u baahan tahay computer ama telephone iyo waxa u baahan tahay lacagtaad maal gashanaysa kaliya mudan gudoomiye markaan investmentiga meeshaas ugu baxo wajiga labaad oo suuqan lagu faa'iideysto waxay tahay inuu qofka ka trade forex-ka camal yani suuqa markuu kacana inuu gato markuu soo raqiisoobana iska iibiyo waxa laga yaabaa dadka qaarkood 10,000 20,000 hadba waxay haystaan inay suuqa geliyaan daily trader Allah subax inuu soo kaco qolkiisa jiifku ka soo kaca qol kale ku dhagan computerkiisa bas u taga sidoo u soo xiranaa si inuu nin shaqeyn rabo camala shaqana uma socdo computerku ka dhax shaqeyn rabo macna 10kiisa kun la galaa suuqa aqoon iyo xirfad ay ku dhisanta suuqaas waxay ku dhisantaa xisaabaad liiraha algorithm ku dhisantaa ma aha gambling ma aha sida wanaagis bitko kale laba kooxda weyn ayaa markaas saadaalna inay badinayso meeqa dhacdo marka kooxda yar inay tunto kooxda weyn ee ka badiso gambling way taas macnaha waa baqtiya nasiib tan laka baqtiya nasiib ma waa aqoon ay ku dhisan tahay xirfado la isticmaalo way xirfadaas soo baranay youtube-da ku jiraan ayadoo ingiriis ayadoo carabi ah luqad kasta waa ka helay marka soo baratid suuxi waa soo fariisanay sessionka inuu furma fiirsanay New York London labadaas bangiga laga tareed garaya marka soo gashid suuqa marka aragtid aqoontaada ay ku tusto in la buy gareenay waa buy gareen adeegna waa soo iibsanay macnaha waa soo iibsanay marka soo iibsato suuqi uu dhaqaaqa bangiyada caalamka iibsanayo tareenka socda dhinac ka raacay adoo $1 wadati iyo wax ka yar faa'iidadaada markuu ku gaaro marka xaddi waa kala bixi waa iska iibinay farqiga marka faa'iidada waxay tahay intaad gelisay iyo inta uu kacay markii la kala jaro faa'iidada intaas waa diiniyan xaraan ma aha tusaale ahaan baawura ka soo iibsatay Dubai $5,000 ku soo iibsatay xamara keentay 5,000 ma joogay 10,000 laga siinaa markii la kala jaro marka faa'iidada meeshaas ka soo baxaysa waa faa'iidada adiga aan leedahay waa trade waaye waa ina ka yani al-bay' wa shiraa waa wajiga saddexaad mudan gudoomiye waa wajiga hadda kiiskan loo taagaya waa sarifaad qofka inuu ka sarifo lacag waxa jirto dad badan oo malaayiin haysto adduunyada jooga laakiin aan la safri karin aan soo qaadi karin oo xamar la imaan karin lacagta lama ogolo saa darteeda lacagta waa qabanay tusaale ahaan Dubai ayaa joogta 1 milyan haysataa lacagta waa qabanay dirham u bedelay dirham marka u bedeshid waxa geenay bangiyada oo USDT-dan isticmaalo Binance ayaa jiro shirkadaha ugu waaweyn akoonkaaga ku shubanay waxa u baahan tahay kaliya in akoon furato farfaydna uu ku yahay oo KYC-gaaga la yaqaan intaas bas u baahan tahay lacagtaada waa la soo tagay marka inta la imaanay xamar diyaarada soo raacday milyanaa telefoon ku wadata cid ku baaraysa male cid ku daba socota male cid ku rabtana male dawlad ku daba galaysana ma jirto haddaan transaction maanta 50,000 sameeyo dawladii daba kacay soo dhays 50,000 inta u wad inta kaaga timid su'aalaas ku weydiinaysa ma jirto marka dad waxa jira marka Soomaaliya aad loo fahmay lacagtaas dad badan oo waxa jira ka ganacsado qofku wuxuu rabaa marka USDT oo ah halka USDT waa $1 u dhigma stable coin Allah ma dhaqaaqdo macnaha halka USDT oo $1 ah waxa laga yaabaa qofka inuu rabo inuu suuqa lacag la galo oo ku yiraahdo waxaan rabaa 100,000 USDT suuqa raba inaan galo ma helaya marka xamar uu jooga
هذا كساعدة يصير بقولك كنا والد كيس أقدره أسيق العقد هاي كاشهان بنجي عادي سلام بنج أم حقوق قدره بريمير بنج العقد هذه عادية ديو سديتي محاها ستا أيضا عادية أكون كاجا حقوق قدره ساسة تهينا وحاسارنا العقد صرف هذا وبقولك يبلغ بقولك $1 $6 $4 فإذا هو هاي ستا العقد هذا أوريجينال كان واحد ستا marka waxaan rabaa inay maxkamaddu saa u fahantii audience-ga meesha fadhiyo cryptocurrency waxa la yiraahdaa saas